wiilkani wuxuu wax u dhici jiray qaab ka duwan qaabka ay dadku wax u dhacaan. Marka hore muusan dhici jirin bangiga laftirkiisa, wuxuu dhici jiray macaamiisha bangiga lacagta kala soo baxda. Wuxuu soo qaataa maaskara jeebku soo gashtaa, wuu soo labistaa, kabaha lagu orday maaragtay gym-ka lagu aado buu soo qaataa. Bangiga uu doonayo inuu dhacayo gaarkiisu yimaada. Wuu iska wiidaystaa markuu arko qof bangiga ka soo baxay oo boorso wata, wuu iska gartaa boorsadaas in lacag ku jirto dhar aan ku jirin. Ilaan dhar bangiga lagama soo baxee. waan islaamid lahaantiinba waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin meel walba oo joogtaan. Maanta waxaan idinka sheekeynayaa qiso wareerisay oo madaxa ka gashay ciidamada dambi baarista ee wadankaasi Kuwait. Qisadan waxay ka dhacday Kuwait dhowr iyo 10 sano ka hor. Wiil dhalinyaro ah wuxuu bilaabay inuu dhaco bangiyada. Bangi baa la dhacay markaad maqashid maaha sidaad hadda u fikraysid maskaxdaada ku soo dhacaysa. Wuxuu u dhacay sida bangiyada loo dhaco si ka duwan. Bangi marka la dhacayo marka hore waa la darsaa nidaamka amniga bangigaas ku xidhan ciidamada ilaalada jooga, shaqaalayaasha, albaabada laga gali karo ama laga bixi karo, shaqada siday u kala socoto, wax badan baa la darsaa. Dad fara badan bayna ku dhacaan oo in badan bay ka fikiraan siday bangiga ku dhici lahaayeen. Intaas markay sameeyaan haddana hub bay soo qaataan, gaariyaal bay soo qaataan, hadhowto markii wixii ay dhaceen gaariyaal ay kula baxsadaan, hub ay dadkii maaragtay meesha joogo ama ku cabsi galiyaan haddii doonaan qaarkood ku dilaanba. askarta meesha joogta haddii maaragtay isku dayday inay iska caabiso kale iyaga laftirkooda ay ku dilaan. Wiilkani wuxuu wax u dhici jiray qaab ka duwan qaabka ay dadku wax u dhacaan. Marka hore muusan dhici jirin bangiga laftirkiisa, wuxuu dhici jiray macaamiisha bangiga lacagta kala soo baxda. Wuxuu soo qaataa maaskara jeebku soo gashtaa, wuu soo labistaa, kabaha lagu orday maaragtay gym-ka lagu aado buu soo qaataa. Bangiga uu doonayo inuu dhacayo gaarkiisu yimaada. wuu iska wiidaystaa markuu arko qof bangiga ka soo baxay oo boorso wata, wuu iska gartaa boorsadaas in lacag ku jirto dhar aan ku jirin. Ilaan dhar bangiga lagama soo baxee. Wuxuu u yimaadaa qofka intuusan gaarigiisa gelin, wuu suuxiyaa wuxuuna ka qaataa boorsada. Askartu markay ku baraarugto la soo caydsadana gaari iyo waxba ma qaato. Maxaa yeelay gaariba marka hore lama yimaado bangiga. Kaligiis lugihiisu ku yimaada, lugihiisu ku cararaa. Askartu markay damacdo inay lug ku caydsatana 5 lug ku ka bixiyaa, xaafadu dhex mariyaa, geerash buu dhex mariyaa, uu lumiyaaba. Lacagtiisu qaataa uu iskala tagaa. Markii ugu horeysay markuu sidaa ku dhacay, ismaysan dhihin mar labaad buu soo noqonayaa oo wax dhacayaa. Bil buu ka maqnaa haddana bangi kale uu dhacay kii aan ahayn. Isla nafsal wadadii uu markii hore ku dhacay buu haddana kan dambana ku dhacay. Maaskaru soo qaataa, jeebku gashtaa, bangiga uu doonayo inuu dhaco kor ka wiidaystaa. Qofku markuu arko qof bangiga ka soo baxay, wuu suuxiyaa lacagtu ka qaataa, wuu cararaa. Askartuna ma dayso way caydsataa. Mar walbana askarta uu ka fakadaa, waxa ma yeelaan. Ma toogan karayaan, xabad kuma dhufan karayaan, maxaa yeelay shacab baa meesha jooga, gaariyaal badan baa jooga, waa xaafada dhexdood. Waxba kuma samayn karaan. Waa inay caydsadaan markii ay waayaanna way iska soo noqdaan. Baaritaan bay sameeyaan, baaritaankooduna wuxuu noqdaa hal bacaad lagu liso meel ma gaaro. maxaa yeelay wax cadayna kama tago. Mar walba uu wax qaato wax cadayna kama tago. Qofkiina ma dilo kow kama siiyo, wuu suuxiyaa kaliya uu ka tagaa. Muddo dhowr bilood markii uu sidaa wax ku dhacayay ilaa 6 bilood meelaha 5 bilood markii uu wax dhacayay ba askartii way daaleen. Mar walba waxay sameeyaan waxay galaan maaragtay heegan bay u galaan inuu yimaado sugaan ma yimaado. Bangigu dhacay kuma soo noqdo. Bangi kale uu tagaa. Dadkii uu waxyeeleeyay uu lacagta ka qaatayna mid walba jug yar buu ku dhuftaayo qaar dhakhtarka la geeyo adigu jug weyn bay noqotay. Dadkiiba waxay la yeesheen waraysi askartii dambi baarista. Waxay ku dhaheen noo tilmaamo qofkaad aragteen siduu u eg yahay. Maxaa yeelay qof maaskara qaba askartuna wax sii cararayay ba sii arkeen. Kaamirada CC kaamiraduna waxay qabataa qof sii ordayo maaskara xidhan. Qof wajigiisa ma qabato. Intaasina ma noqon karaysa cadeen qof lagu heli karayo. Way u tilmaamaan waxay ku dhaheen joog ahaan waa nin dheer oo dhisan oo murqo waaweyn. Intan bas wajigiisa laga arkaa. Marka waxay dhaheen intan yacni qofka midabkiisa intan waad ka garan karaysaa haddaad ka aragtid. Qof walbaana wuxuu arkaa marka u horeyso uu suuxinayo inuu indhaha qac ku siiyaa. Marka waxay dhaheen midab ahaanna waa qof maariin ah, ma ahan nin aad u cad ma ahan. Askartii intaa yarta kaliya macluumaad ka haysataa, intaa ka badanna ma haysato, ka yarna ma haysato. Intaasay ku raadisaa ninkii. Kadib 6 bilood markii uu sidaa ku wada iyagana waxay go'aansadeen saraakiishii iyaga ka horeysay ee shaqada ka fadhiistay. Da'dooduna kor u dhaafayso 70 80 oo dad khibrad aad u dheer u ah dambi baarista u leh oo dambiye iyo kiisas la xallin waayo horaan u xalliyay inay soo kaxaystaan
ay ku dhahaan waxaan u baahnaa inaad caawisaan mid ka mid a 5 qof bay soo kaxaysteen u yeedheen 5taa qof mid ka mid a wuxuu xalliyey kiisas hore loo xallin waayey buu xalliyey marka isagaasaa hagayay wuxuu ku yidhi wax walba oo macluumaada ood ka haysaan ninka ama caddayna ii sheega marka waxay ku dhaheen macluumaadka aan ka hayna wuxuu yahay inuu yahay nin dheer dhisan oo jir ahaan murqo laho jiim ciyaaro dhisan inuu yahay orod dheerna intaasaan ka haynaa wuxuu ku yidhi tilmaamta aad sheegteen iyo qofka wax dhacaya isma laha maxaa yeele wuxuu yidhi dadka orodyahamada ah waa dad seeda iyo lafa isa surana dee ma lahan baruurna ma lahan murqo waaweyn oo dhisanna ma lahan marka wuxuu ku yidhi ninkan askartii oo dhan ka orod dheereeyey ee ilaa hadda la qaban la'yahay ee 6 bilood aad soo ceyrsanayseen ma noqon karo ninkaas dhisan maxaa yeele qofka dhisan ee culus ee murqaha waaweyn orodkaamaba lahanba ninkana wuxuu sameeyaa waa nin maalin walba orda maxaa yeele noloshiisa shaqadiisa waxay ku dhisan tahay orodka markuu wax soo dhaco inuu lugihiisa ku cararo waxay sameeyeen markii ugu dambeysay uu wax dhacay bangigu ka dhacay ereyadiisa oo dhan ba waxay u tageen shirkadaha isgaarsiinta waxay ku dhaheen waxaan u baahannahay dadkii maalinkii wax la dhacay ilaa iyo dhowrkii maalin ka sii horeysay dadkii taleefanada ku hadlay ereyadaas oo dhan waxba kamaysan helin iyana way iska dhageysteen codadkii bay dhageysteen laakiin waxba kamaysan helin isagana wuxuu bilaabay markaa wixii ka dambeysay inuu gaari soo xado maalinka uu wax dhacay laftirkeeda gaari soo xado kadibna gaariga uu xaday lacagta ku qaato taarikada gaarigay qortaan way ceyrsadaan gaariga magaaladu ka saaraa ama xaafadaha meel ka baxsan buu geeyaa marka dambe wuu gubaa gaari walba soo xadana dhowr biloodoo dambe markuu qaabka wax ku xadayo gaariyaasha intuu soo xado oo magaalada ka bixiyo meel xaafadaha ka baxsan geeyo marka dambena uu gubo marka uu wax dhaca kadibna magaalada uu ka baxaa marka odaygii ciidamada dambaadhistu ay u yeedheen wuxuu yidhi ninkan magaalada uu ka baxaa maxaa yeele wuxuu yidhi intaasaan baaritaan ku jirnaayo ilaa hadda lama helin dhalinyaro fara badan oo isaga maaragtay tilmaamtiisoo kale labay soo qabteen oy xidheen baaritaan marka lagu sameeyey dhalinyaradii waxba waa lagu waayay oo layska soo daayay marka waxay dhaheen waxaan aadaynaa garoonka diyaaradaha waxaan baaraynaa maalinkii u dambeysay ee wax la dhacay iyo dhowrkii maalin ay ka dambeysay dadkii eriboodka ka baxay ee wadanka ka dhoofay dadkiibay eriboodkay aadeen kadibna waxay bilaabeen baaritaan ah inay siiyaan magacyada dadkii baxay maalinkii wax la dhacay iyo maalmihii dhowrkii maalin ay ka dambeysay ilaa 3-4 beri ay ka dambeysay almuhim maalinkii dambe magacyadii marka la siiyey listiga dadka waxay ka reebeen dadka aan looga shaki qabin dumarka way ka reebeen maxaa yeele wax dhacay dumar ma ahayn ciyaalka way ka reebeen rag odayaasha waaweynna way ka reebeen da'da waxay qaateen 19 ilaa 30 inta u dhaxaysa maxaa yeele waa inta da ahaan iyaguna ay ku tilmaameen dadkii wax laga dhacay ee bangiga uu lacagta ka qaadanayay da'da intaasay ku qiyaaseen 19 ilaa 30 ugu badnaan intaas marka intaasay qaateen intii bay haddana sii kala qaadqaadeen maxaa yeele tuugu dhadaa ku dadan isaga dhanba ma cadda hawshiisu ma cadda si ay u kala saaraan waxaa usoo baxday markii dambe 6 qof oo bil walba ka safarta wadanka 6 qof bil walba way safraan 6 qof waxay ku bilaabeen baaritaan taleefanka inay ka wacaan gurigoodii inay aadaan familkooda inay la yeeshaan waraysi dheer la yeeshaan baaritaan badan lagu sameeyo 5 ka mid a waxay dhaheen qaar way xanuunsan yihiin oo caafimaad ahaan bay wadanka uga baxaan bil walba way soo noqdaan haddana qaarna waxay dhaheen shaqay u baxaan ay usoo noqdaan haddana hal bay waayeen taleefankiisii gurigiisii bay tageen gurigiisana wuu xidhan yahay marka waxay dhaheen kan baan sugaynaa inta uu wadanka kusoo noqdo waana la soconaynaa dhaqdhaqaaqiisa mar walba uu soo galo wadanka horey baan ka qabanaynaa haddaba su-aasha isweydiinta mudan baa waxay tahay waa kuma ninkan wax dhacaya ninkan wax dhacaya waa askari military ah ciidanka militariga ka tirsanaa horaan markii uu bilaabay wax dhicitaanka bil ka horba wuxuu ka fadhiistay shaqada waa qof tababar dhammaystiran haysta waa qof garanaya qaanuunka wadanka waa qof caqliyadda militariga caqliyadda dambi baadhista wax walba uu sameynayo garanayo khibrad buuxda u leh intaa wuxuu dheeraystay inuu yahay qof orod sameeya maalin kasta orda haddii ay kasoo horbaxaan 10 askara oon hub wadaninna marinka uga baydhi maayo oo uu tababaran yahay wuu soo noqday markuu sida wadanka usoo galay bay qabteen markiiba xabsiga u taxaabeen waraysi bay la yeesheen waxay ku dhaheen maxaad wadanka uga baxdaa bil kaste wuxuu ku yiri wadanka waxaan uga baxaa ganacsi baan aadaa waxaanan aadaa wadanka Thailand
oon ganacsiyo badan ku leeyahay waxay ku leeyihiin ganacsigaaga muxuu yahay wuxuu ku yiri shirkado waaweyn iyo waxyaabo fara badan oo ganacsiga noocyadiisa kala duwan buu ku leeyahay sidaad waxay ku dhaheen muddo yar ka hor waxaad ahayd nin ka tirsan ciidanka militariga waxaadna ka tagtay dhowr bilood ka hor intaa yarta ah shaqo kalena ma haysid sideed intaasoo ganacsiga oo dalka dibadiisa aad ku samayn karaysaa sidee ku dhacday markii hore uu diiday inuu qorto hore ka qarto dambiyadiisii cadaadis badan kadib wuxuu yiri waan qaranayaa laakiin wuxuu yiri si fiican ii dhageysta wuxuu sheegay dhowr qodob oo ka yaabiyay dadkii dambi baadhista ahaa iyo cid walba oo maqashay sheekadan wuxuu yiri intaas oo kiis dhac ah aniga geystay laakiin wuxuu yiri marka koobaad dumar waligay waxba kama qaadan mar walba on dumar arko on iskaga tagaa waxba kama qaadan waligay dumar waa koobaad talabaad wuxuu yiri waligay qof u dhashay wadanka Kuwait oo Kuwaiti ah waligay waxba kama qaadan tan saddexaad wuxuu yiri waxaan wax ka qaataa dadka ajaanibta ah waxaanan aaminsanahay dadka ajaanibta xoolahoodu inay aniga xalaal yihiin iyo tan u dambayso oo ah wuxuu yiri qof ma dilo qof walba wax ka qaadanayo waan suuxiyaa waxaan u baahanahay baan ka qaataa waan iskaga tagaa qof ma dilin ilaa iyo inta maalinkan dhaca bilaabo ilaa maalinka maanta qof ma dilin waan suuxiyaa waxaygan ka qaataa waan ka tagaa wuxuu ahaa tuug laakiin muxtaram ah leh qiyam waxa la yiraahdaa qofka diin kala haysta diintu doonaha haysto qofkaasi wuu ka fiican yahay qofka bilaa diinta maxay la wuxuu xeerinayaa jirta marka sidaas oo kale qofku tuug ha ahaado wuxuu dan moodaba ha sameeyo laakiin markuu leeyahay qiyam iyo wuxuu qiimeeyo iyo xad celiye markuu leeyahay wuu ka fiican yahay qofkaan xadna celinin ninkii isaga ahaa waxaa la geeyay maxkamadda la saaray kadibna dadkii uu wax ka dhacay waxaa loo celiyay qaar hantidoodii isaga ganacsiyadu ku lahaa Thailand ku lahaa ilaan dalka dibadiisu lacag badan u dirsaday oo ganacsi ku sameeyay lacagihii baa la soo celiyay waalidkiisii familkiisii qayb bay soo celiyeen lacagtu tira dhaaf bay ahayd wax ciida ama reeyay cid soo celin karta ma jirto laakiin in badan oo lacagtii kamida waa la soo celiyay intii aan la soo celininna dadkii laba ay u qaybsameen qayb iska cafisay ninkii maadaama uusan dilin oo wax yar lacagtii uu ka qaatay kaliya iska cafisay iyo qayb tiri ma cafinayno intii aan cafinin baa waxaa la isugu daray xukunkoodii 23 sano oo la isugu dardaray baa lagu xukumay ninkii oo xabsiya tuugada wadankeena Soomaaliyeed waxay ku ba'een intooda badan qofka markay wax ka qaadanayaan wax kama qaataan oo kama tagaan markay dilaan oo waliba geerida ku hubsadaan bay wax ka qaataan in yar oo Ilaahay u naxariista mooyaane qofka markaad wax ka qaadanaysid nafta aadamuhu dhalanteedka ma aha ma fududa sida uma fududa markaad wax ka qaadanaysid adigu waxa doonaysid nafta qofkan inaad qaadatid ma aha waxa qofkaas u haysta inaad qaadatid inuu qofka wax ka qaataan oo ka tagaan intooda badan ma gartaan waxaan sheekadan idin raacinayaa sheekayro hadda koor aniga igu dhacday anigoo gurigeena agtiisa maraya xaafadda agteeda baa wiil dhalinyaro ah waxaan arkay garabkayga ila siman wuxuu igu yiri markaa taleefanka dhiib markuu garabkayga marayo taleefankaygana cidna ma arkin hoos baan ku haystayba waxaan ku yiri taleefankeesa wuxuu igu yiri taleefankaad gacanta ku haysa dhiib waxaan ku yiri taleefan ma hayo waxaan isku dayay inaan inkirada taleefankaygana maadaama aan la arkaynin isna soo malaha in badan buu soo daba socday meel dheer buu ka soo arkay taleefankayga waxaan ku yiri markii dambe kuma siinayaan ku yiri markuu ogaado taleefan inaan haysto mindi buu soo bixiyay dheer oo toori camal wuxuu yiri mindida ma aragtaa ha taleefanka isdilinay iska dhiib ana waan diiday oo waxaan isiri waxaan anigu leeyahay in la iga qaato waan ka dhidhiyay waan diiday inaan siiyo taleefankayga waxaan ku yiri may taleefankayga kuma siinayo laba mar markuu igu yiri taleefanka isdilinay iska dhiib diiday buu mindidii gacanta halkan jug iiga siiyay halkan mindida ima doonayn inuu idilo wuxuu doonayay kaliya taleefanka inuu iga qaato laakiin in badan baan wada hadlaynay intaas wuxuu doonayay inuu taleefanka kaliya iga qaato uusan waxba yeelin laakiin ana isku dhajinayay taleefankii inaan dhiibo mindida afkeedu jug igu siiyay marka mindida meel xididay iga dhacday xogaa gacanta ay gariirtay dhiig baa iga yimid gacantan ku qabtay farta kale iska saaray taleefkii buu qaatay wuu cararay markiiba tuugaas wuxuu ahaa tuugada muxtaramiinta ah marka si loo fiiriyo maxaa yeelay ma doonaynin marnaba inuu idilo waxa kaliya doonaya waxay ahayd taleefankaas uu doonaya inuu iga qaato waqtiga dib hadii loo celin lahaa waqti dhowr sano ka hor bay ahayd horta laakiin waqtiga hadii dib loo celin lahaa marka uu horeyso taleefanka i weydiiyo waan iska siin lahaa maxaa yeelay nafta wax ka qaalisan ma jirto markaan hooyo iyo reerka u sheegana wayba qaracmeenba
وتلفونكاas aad naftaada isu dhaafinaysay almuhiim sheekadan haddii aad ka heshay intan horta haddaan isla soo gaarnay ood sheekadan dhammaysatay waan kaaga mahadcelinayaa aad baan kaaga mahadcelinayaa muuqaalka haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya ama aad jeceshahay channelka inaad ka aragtid qaybta hoose ee faallada noogu reeb waa inoo muuqaalka kan xiga insha allah nabad iyo caafimaad baan idinka tegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu